بسم الله الرحمن الرحيم waxaan idinka mahadnaqayaa imaatinka timaadeen yeerdii aanu idin yeernay maanta in halkan waxoogay waraan isku dhaafsano waxaan u mahadnaqayaa guud ahaanba dadka ka shaqeeya warbaahinta iyo hawshooduna in badan ka wada hadalay inay xil weyn qaranka u hayaan oo hawl badan oo dadka warka isaga gudbiyaan oo dalka isku xidhan oo mahadnaqaynaa maanta waxaan idinku yeeray laba qodob war cusub ma aha oo idaan ogeyn laakiin waa arrin culayskeeda iyo in badan laga wada hadlo miisaankeeda u leh waxaad ka warqabtaan in dowladda muqdisho ay dacwad geysay golaha ammaanka dacwaddaasoo ku saabsan somalilan dhulkeeda oo ah heshiiska wada galeen dowladda imaaraadka iyo dowladda somalilan ee gaar ahaan si gaara DP World iyo mashaariic aynu la galnay in lagu horumariyo berbera arrintaas iyada meelaha ay khusuusina waa gaarsiinay waraaqaheeda iyo warkeeda qaranka Soomaaliland waxaan jecelahay inaan u iftiimiyo waxa jira arrinta sida dadka qaar ku yiraahdaan waxa ay dacweeyeen DP World inaga inama dacweyn DP World inaga heshiiska la galay Soomaaliland baa la gashay goobta la garan garay ee laga wada hadlayaana waa dhulka Soomaaliland oo waa berbera DP World maxaad berbera u tagtay oo heshiiska la gashay ninka lehna waa ninka muqdisho ka tariya arrinta macnaheedu waxa weeye dowladda warqadda qortay xamar joogta tallaabooyinka aan sheegi doono oo dhan ayaa gafa waa markaan history-gii hore aynu in badan ka hadalnay ee qoraalka ay yaalla iska dhaafno Soomaalidii Talyaaniga iyo Soomaalidii Ingiriiska iyo waa laba dawladood taagnaan ahayn sheekada markaan ka imaado waxaynu ka soo qaadaynaa markii dawladdii militariga ahayd ee jabhaddu dagaalamayeen laga reeyay ee laga adkaaday ka baxday meesha ka soo qaaday wixii shir loo qabtay koonfur oo ugu horeeyaan kuwii Xasan Guulad qabtay labada shir ahaa ee Djibouti ee 91 ahaa Soomaaliland shaqo ku waray wafti uma diran caalamkuna wuu ogi wixii ay dawladda isanayeen midna shaqo ku wanaag lahayd tii cali mahdi ee Djibouti ka soo baxday ee Xasan Guulad dibna waxay tii dhibaatada weyn ba ka bilaabantay markuu cali mahdi intuu muqdisho ka duulo xamar tagay yiri qolada burca ku shiraysa Soomaaliland waa qolo shiraysa halgan wuxuu ka bilaabay gobolada dhexe ayuu cali mahdi ka bilaabay si midaysan ayaa Soomaaliland oo madax raqameedkeeda iyo siyaasiyiinteeda iyo aqoonyahanka burca fadhiyaan ugu jawaabay kamidna waxa aad samaystay shirkii kala dawladda ugu dhisay ku xigay waxa ka carta waxa loogu dhisay Soomaalida tirada gumaysan jiray Soomaaliland shaqo ay ku lahayd dawlad ahaan ninkii noolaana wuu ogyahay ee joogay ninkii taariikhda ka akhriya kama ahay Soomaaliland qayb carta iyo say wax u qaybsadeen iyo waftigoodii way jireen ashxaas tagtay oo Soomaaliland ka mid ahayd laakiin waxay ka ahaayeen qolo gefka gashay qaranka markii ay maadaana waa ogaadeen qaar la xiray iyo qaar dagaal ka dhaceen iyo qaran ahaan inuu ka yaalo xeer waxa ku xigtay tii Nairobi lagu dhisay dooreed Soomaaliland qayb kama ahayn waftiga kama ahayn haloosiga kama ahayn xeerka dastuurka dhisan kama ahayn caalamka iyo cid u dacwoonayna wogti tii kale Djibouti ka xigtay taa maanta farmaajo ee waxa gudbisay iskuulka booliska waxa isweydiin leh bini aadamku hadday laba qof yihiin hebel iyo hebel waxyaalaha qadafka ah
ama qof kale aan ka qaban uu kala bayda hadday laba qoys yihiin waa loo kala bayda wixii qadafa oo maxaa qofka in la gudbo baa la oran karaa haddii laba qaran la yahayna waxyaalaha qadafka ah oo ardu qofka xaq u lahayn oo meel xeer qabto oo ugu soo gabataan lahayn waa laga bayda hal qodob bal iyo la oran doona caalamka rumaysan oo Soomaaliya mid bay ahayd وتدير دول قرمان وهاي دول دين حاول مقصود وهاي دول إذا الاعتراف سين هذول تمركوا يجاك حكومة وحريا بقى إن التاس مسكحة المكسور عدد كغارك وحي لبعض الدول مدوبنا حمر سوتة اللي حدك كما سوقات سايت هاي اللي مدوبنا دول هرق شاهد وحي ربح حناي سومالي ريبابليك سومالي ريبابليك صدق حيث كيح اللي بالك تجالكن iyo sagaashankoodii iyo wixii la isku daray oo aqbalay oo aan ahayn wax laga heshiiyay yeelkeeda caalamka loo gudbiyay waxay ahayd Somaliland Republic oo xamar iyo mustacmaradii Ingiriiska iyo Titaniga magaca United Nations ka yaala ee caalamku maanta xorriyad loogu ogol yahay ay sitaan dhaca ay ku sitaan gartay ay ku sitaan waka marka doodeenna marka dood mid waxaan u jeedinaynaa security councilka iyo jimcada quraacaysa dadkeena oo sharaxayna oo shirka saxaafadeed waa inteena su'aal ku hadashay inuu isla fahmo Somali Republic labadaas ahaayeen koob iyo sagaashan kii bidinti dib ha loo dhisaalay ilaa kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii iyo ilaa 2012 shirkii London intii ka horeysay waxa la dhisayo caalamku maal gelinayo kolba ciidan loo soo diraayo waxay ahayd Soomaaliya Talyaaniga guulaysan jiray Somaliland ilaa maanta burca ka qaaday ilaa maalinka maanta iyadun baa wixii u dhisanaysay ilaahayna waa ku galado iyagun baa safgaranayay adduunyaduna waa ku hambalyeysay waliba Somaliland haddaynu nahay inagu dhibaatayna dhaqaale xumadeena khilaafkeena oo haddana ka kabanade ilaa dadku dhibaato u wada haystaa waa soo kolba u kabtay ayaa waxaynu bixisna leeyahay waxaan walaalina wada hadli doona markay iyaguna heshiiyaan wax samaystaan ma inaan oranin imikaanu anagu waxooga intay kala burbursay yihiin baan wax ka goosanaa rudayalmana wali waxaynu ka dhisnay bixisna iyo laba walaala oo maanta gurigiisa wala iyaguna hadeegan waxa dhisteen dana wada hadal kamana baratay ay maanta jirayeen oo nimanka carabiga minni waa hagaag haddaba horta waxa su'aasha aan weydiinay waxa weey isweydiinayna inta su'aal ku hadashay qof walba wuxuu ku hadlaa oo iyagu ku hadlaan Soomaali midnimada doonayna halkaas uu ka bilaabay midnimada su'aashan maanta weydiinay waxa weey sidee midnimada Soomaaliyeed ku imanaysa haddaad xitaa shantii ka tagto labadii bariga midnimadoodu sidee bay ku imanaysaa maanta talabooyinka xamar ka dhacaya 58 sanadood ee Soomaaliya marna wada jirtay marna burbursanayd iska joogtay colaada ay dhigeen Soomaaliya timaadey iska daayo generation ka soo socda 100 sano soo socda ay colaad iyo dab aanay ka bogsan dhigay why haddaan ku dhaho adigu xafiiskaaga atilada joogto ka shaqeysan karaysid haddaan ku raab xafiiskaaga ma garato ka shaqeysan maxaa xafiiskaaga uga shaqeysan demin heshiirina warsado sare iyo kala maqleen oo waliba aynaan waxba isku darsanin siyaasad iyo talo iyo shiriyada aynaan lahayn lixankii maalin sunnimid baan kugu maamulaya waliba aan kaala dagaalamaya inaad dhaqaale hesho ama aad horumar hesho ama aad nabad hesho waxay la tahay cadaawada ay abuurtay iyo naxariga ay mustaqbalka ku abuurtay iyo halka ay gaarsiiyeen ilaahum badweyn kara Soomaali waxay isugu iman kartaa jawaabtaan u hayna horta markaynu Soomaaliland nahay qof markaynu nahay qaran markaynu nahay marnaba xumaan Soomaaliyeed ama mid dal kale ama mid dad kale kuma naafaqan kuma goodeen waxaynu dhamaanteen weerar ku nahay nin weyn iyo yar khilaaf ku dhibaatadu leeyahay waxaynu ku aragnay colaadu wax ay leedahay waxaynu ognahay iskhilaafku wuxuu yahay
markaa gudaheena iyo dibaddaba dhaqan ahaan bay noqotay jirkeennay ka mid noqotay inaanu ka ilaalino wixii khilaafaad iyo dhibaataa iyagana duca iyo waxtar baynu ahay inaan kula socdo haddaba waxaan weydiinaynaa qolada muqdisho ee maanta ka dacwoonaysa barbaraa cid ka maamusha balse wuxuu doonayaa midnimada doonaya ka egtay midnimada Soomaaliyeed doonaysa iska wadhaa shantii kale iyo boqolaal ugu gudbaayo tii kala tagtay 19 kii xamar ku tagtay ra'yiga aad ku doonaysa inay Soomaali ku midowdo ninka xamar jooga ma talanayo bal dadka u sheeg wada lahaa ee xamar Soomaali baalku wada lahaa ka Kismaayo jooga ka Baydhabo jooga ka Hargeysa jooga ka waxa tiraahdo mid dawladda doonaysa waa ay Soomaalidu waxay ka taagantay oo hore uga taagnay laba dawladood isku baan ahayn soddon sano kadeeda oo khilaaf ay taagnay way duntay labadii dawladood nin waliba dhankiisa uu xuristay haddii walaaltinimo la doonayo haddii midnimo la doonayo haddii shacabka koonfurada dhex jecel Soomaaliyeed in hayso waxa la isugu iman karaa uun inagoo hebel iyo hebel inagoo laba dawladood oo walaal ah oo isqadrinayna seen wuxuu yadeerna si carabku yeelo isugu iman mayno kuna dhici mayso anigoo xamar jooga oo saaka xamar baarlamaankeedii laba u kala fadhiya laba qol oo iyagu isku dilaaya iyagoo xamar jooga oo Kismaayo dawlad gaar ah tahay oo federaal ah oo Baydhabo mid gaar ah tahay oo Banaadir mid gaar ah tahay oo Jowhar mid gaar ah tahay oo Dhuusamaree mid gaar ah tahay oo Puntland garawar dawlad gaar ah tahay Berbera shaq ra'yiga qura intaas oo dawlad federaal ay ku heshiis yihiin Soomaaliland annaga dusha ka xukuno ma noolaan karto ma dhaqaaqi karto ma shaqaysan karto oo caalamku waxba lama qabsan karto oo halkooda xabsi bay noogu xidhan yihiin mid suurtooysa ma aqliyan baan u suuroobayn diiniyan baan u suuroobayn dhaqan ahaan baan u suurtoobaynin dadka waxa lagu leeyahayna ee Soomaalilandna waa dad goba oo dhafoor taabashana qaadan loona talinin inta Ilaahay abuuray cidna aan uga maganahay intaas aan kala yahay dawladaha jaarka ah iyo igad iyo caalamka waxaan u sheegaynaa arinta ay soo faragelisay dawladda Muqdisho Somaliland ee mashaariicda Berbera waa weerar cad waa faragelin umar dul qaadan karo laba waxaan kaga soo gabagabeynaa arinta Somali Republic qaramada midowga aqoonsadeen waxaan u aragnaa in ay xashaga Iran shacabka Somaliland waana ka dacwoonayna caalamkan uga daari mayno inaanu dantayada iyo xaq ay gardarrada dhacda si loo sixlaa ka galo Somaliland waxaan la idinka jooga taa ku niyadjay mayna inaa dhimayso maanta China adduunka ugu xoog weyn ilaa 1945 ilaa 40 sana aqoonsaday iyaga oo intaas oo tiro oo xoog leh waa laga duutay aqoonsiga tiro baa la aqoonsaday dulqaad iyo adkaysi iyo gartooda oo mar qura ka nasanin ayay ku yimaadeen Switzerland waa adduunyada dhan halkay majarata ah oo shir kasta lagu qabto oo halka u degan laga qada waa dhaweyto mara 9 kii bay ogolaateen gasho jibcada qoraga xisaab dhowr boqol oo sanadood way diiday waxaan ahayd meesha nabadda iyo shirka iyo dhaqaale loogu tago waliba Switzerland waa dalal qayb aan isafaqoonin Talyaani ku hadlaan Faransiis bay ku hadlaan Jarmal bay ku hadlaan way kala qabsan hadana dawladdu way fikireen noloshooda sameystay waa lagu yiri Taiwan oo jasiirada aragteen ah oo ilaa iyo dhowr iyo tobanka aan cid aqoonsan oo China bilyan aad u fadhida adduunkoona macaamil bale waan shaqeystaan waa lagu qadariyay haddana jibcida qoro haysatay kuwaas waa ku wanaagsan hore u maray dadka dhibaatooyinka qaatay 7 sanadood kale ee maalin walba dhimashada iyo dagaalka iyo weerarka u tahay xabada laga kala qaadin ee haddana xurrimadooda ka dhaqaaqina waa Falastiin 45 ilaa maanta waa bariyo oo dil iyo dhimasho iyo dagaal iyo ilaa dhagax ilaa qoraar ku dagaalada jirta maxay ilaalinayaan dhaqa xurrimadooda iyo qarnimadooda u baraya markaas shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay kuma niyad jabayno ugu maqalmayna waxa inoo kordhinaysaa xoog
iyo moral iyo inuu qaranka dafacno arrintaas taa intaasaan kaga hadhay qodobka labaad anigu waxa weeye waa abaaraha cimilada isbedeshay ilaahay baryo maan kulaan ilaahay baryo maan kulaan nolosha uu ina baray ee raxmaadkii barwaaqada inuu noo soo celin ilaahay ka baryana hase yeeshee caalamka waxaan u sheegaynaa in cimilada soo noqotay abaaraha isbedeshay maantana ay Soomaaliland abaartii ka taagantay dalka intiisa badan oo roobkii sanadkan seejiyay maxaanu ka qabanayna waxaanu qabanay nolosheena si inuu bedelanaa waa waqti dheer bay qaadanaysaa dhibaataduna way maraynaa waayo dee waa amuur ka weyn qof bini'aadmi iyo wax qabto cimilada isbedeshay xoolaha naga dhamaanaya waa ogtiin walaalayaal maanta dadkeena wuxuu degan yahay waxa la yiraahdo barakacayaasha laam saawdaatay wadooyinka tuulo walba la dul ooday waa talaabadii horreysay halkaas dadka joogaan shiraaعooda caafimaadkooda inta la'aantooda waxay u baahan tahay laba talaabo ayaa la gudboon qaran ahaan mid waa imika waxaanu qaban karayno mid waa mustaqbalka dawladda iyo xukuumadda waxa ku waajiban inay qorshayaasha keento iyo si looga baxaya shicibkana waxa la gudboon kii waxaya ama dhaqaale ama xoog ama aqli inuu ka qayb galo imikana maxaanu qaban karnaa mustaqbalka waxaanu qaban karnaa iyo ilaahay la kaashano iyo caalamka wixii dee aynu safgarano oo aynu leedahay waa la iska gargaaraa masiibooyinka waaweyn gargaar dadkana loo soo fidiyo anagu qudradda qorshaha waxaa naga qorsho ah in mustaqbalka dhow dadkan sidii loo bedel lahaa noloshooda aynu galno waa cilmi la wada ogyahay xoolihii guurayay iyo daaqii isu miisaanaa iyo noloshii isu miisaanaa ilaahay baa bedelay mar hadday saatay waxay noqonaysaa xoolahina inuu dejinno oo wax gacanta wax laga sii wax loo beero oo biyo loo doono kala saamiyo oo loo helo dhaqaale iyo technology wixii dadkana wixii badda ka tagay in badda loo bedelo oo loo tabaro dhaqankeena waa ahayd haddana waa qasab wax xirfado la baro service ay ku shaqeystaan ay ku soo kordhiyaan qorshayaasha dadkuna hore uu soo wada maray oo adduunka darteena dhibaatada uu soo wada maray oo qolo walba abaaro way ku soo dhaceen oo dadka Mareykan degan iyo kuwa Australia degan waa kuwii ka qaxay England iyo Ireland markay baradho waayeen sano kale 100 sano ka hor marka aqliga dadku bini'aadmu keenayay ayaa inagoo wada jira hawsheeda aynu wada galaynaa maanta si waxaan u qeeshanaynaa warbowdo kala mid baa qaawana caalamka oo dhan arrintaana in wixii gargaar laga helo oo aan ahayn bariya joogta ah oo la quudiyo meel ku xareysnaana laakiin Soomaaliya ay u tashanayso sidii loo caawin lahaa inay kabato oo nolosheedu bedesho abaartana intaasaan ka baxaya baaqaasaan ka diraya dulmar gobolka aynu ku noolahay maanta duufaanna siyaasadeed baa ka jira isbedelo badan baa socda waxa ilaahayna dejiyay mandaqad aad iyo aad istiraatiiji ahaan u wanaagsan oo marta meesha dhunta adduunka oo dhami ka baac mushtareeyo oo aad iyo aad haddaynu caqli wanaagsan keenno ugu faa'iido badan meel dego ugu wanaagsan dee nimco wadan nusqaanteeda leedahay dhulka aynu degannahay geographic 200 sano u dambeeya waa lagu tartamayay oo dad inaga xoog weyn baa ku tartama oo kolba dadka adduunka u xoog weyn markaas ay talinaya kolay ahaadaan mustaqbalka Yurub kolay ahaadaan dagaalkii qawaar Ruushka Mareykanka imiko ay tahay dalka u xoog weyn dhaqaaleeya ay shooyinka noqoto cidii dhaqaalaha dalka ugu xoog weyn oo ku tartamaya waa jira siyaasado iyo dabaylo dhowr bay isu dhaafay taana waxaanu ka raacaynaa inuu dowladda Soomaaliland tahay koow ta inaga danteena mustaqbalka fog iyo ka dhow ay faa'iido ku jirto qof waliba dantiisa mustaqbalka fog oo ubadkiisa nolosheena kuma xirna maanta iyo bari inteena nool ma generation keena dambe maxay loo faa'iidaan inaan ku duuleynaa iyo maanta maxay inoo dana waxaanu ka duuleynaa gobolka markaanu eegno waxa la yiri jaarkaaga ma dooran kartid ilaahay baa kuu dooray afarta dhinac jaarka naga xiga mid walba waxaanu ku qasbanahay oo naga mabda ah inaynu nabad iyo iskaashi iyo ixtiraam iyo boodabaac mushtarin loo siman yahay aanu kula shaqeyno waayo nolosha waa la tijaabiyo waxaan nabad iyo wada shaqeynaysa qadarinaahay uu socon waayay hadduu qof yahay hadduu rag yahayba marka waxaan leenahay waxaanu ka bilaabaynaa inagu xageena in laga waayo mooyaane inay nabad iyo horumar iyo iskaashi dhaqaale
oo ummadeena cimiladu saamaysay ila gobolka abaartooda saamaysay dhibaatadii aynu ka baxno oo aynu mid walba nabad iyo wada shaqayn ka doono kii aynu ka weyno sida walaalaheena Muqdisho waliba waynu qaboojin miirka soo ciri baanu ku oran taas ma soconaysa haddii loo taag waayo gabayga faarax xurba istaagi in raga saan soo waana qanaadi baynu geliyo si walba aynu warkada haddu ka dayn waayo dee wixii halka dhigan noqon doonta gobolka maanta xisaagu waa weyn mid hadlayaan Ethiopia kamid ah Ethiopia xisbigeedu wuxuu doortay gudoomiyaha xisbiga EPRDF oo xisbiga isbahaysiga talada haya Abaay Ahmed waa ku hambalyeynaa gudoomiyada loo doortay waxa la rajaynayaa inuu noqdo prime ministerka iyana oo ku bogaadin markay timaado waxaan leeyahay Ethiopia waa dad weyn oo istaraatiijiga 100 milyan baa ku nool dal ballaaran waxaanu u rajaynaynaa inay nabadgeliyo ku dhamaato siyaasadooda loolankeehi inay nabadgeliyo hawlahooda ku dhameystaan waxaan u fidnaa jaarnimo wanaagsan iyo isqadarin iyo jaarnimo ismaanu diyaaruna iyaga iyo Djibouti iyo Soomaaliya iyo Yamanta xagga inaga xigtada ka socdo mid walba badda asay horteena ka soo jeedo dagaal adag baa ka socda oo Yaman aad iyo aad baan ugu xunahay dhibaatada ka socotay shacbiga gaadhay iyo burburka iyo baaba waxaanu ka talageli Ilaahay uga baryaynaa in nabadina u soo noqoto dhibaatooyinka ay ka baxaan waayo waa tan shalay soo marro karo oo markaad aragto ama fiidiyo ama wararkooda aad iyo aad baad ugu xumaanaysaa maanta itaalkeenu hana waxay talo iyo duco ku dareena waxaynu wada helay Djibouti inta kale oo iska xigna waa walaaladeen arrimahaas asde jira inagu nabad iyo walaalaan kana DB World oo ka soo gurtay Djibouti timid waa arrin ganacsi markaad shaar iibsanayso dukaanka aad gashaa waad iskaro wadaan kan ku xubad ka iibsata ma aha mid Djibouti halkan waxyeelo kaga duulayso mana aha Djibouti haddii DB World qataa mid laga Soomaaliya balay kaga soo duulayso muhiimadii walaaltinimada reerka weey waxa laga boonbooniyo oo mararka qaarkood dadku waxa ka daayaan in ay inaga Djibouti DB World ganacsiga dhex maray waxyeelaya ma waxaan nahay baa weyn wanaagna wanaga dhaxeeya wax khilaafana malihin madmaduna halka ku jiro taana hadda intaan ku soo koobo aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa